ciid wanaagsan. maanta waxay ku beegan tahay maalintii koowaad ee munaasabadda ciidul fidriga ee shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida ee ku dhageysanaya maxaad u diri lahayd? waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida khaas ahaan ciidamada xoogga dalka taliyaashooda taliya xigeenada saraakiisha dableyda. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciidan ciideeda nabad iyo barwaaqo ku ciida. waxaana rajaynaynaa ummadeena Soomaaliyeed inay gaarto horumar iyo barwaaqo, ciidankeena uu noqdo ciidan ilaaliyo nabadda, xasiloonida iyo horumarka dalka. waa tahay mudane wasiir, saakeet waxaa la arkayay meelaha qaar ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabkii oo meel fagaaraha intii isugu yimid salaadii wada tukanaya, isku hambalyeynaya oo wada ciidaya. marka arrintaasi sidee maxaad dhihi lahayd? waxaan dhihi lahaa ciidamada qalabka sida guud ahaan ayaga waxay qaabilsan yihiin sugidda ammaanka iyo ilaalinta muwaadiniinta noloshooda iyo hantidooda. taas waxay tusinaysaa isdhexgalka ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed iyo kalsoonida ay isku qabaan. waxaana ka rajaynayaa insha Allahu kalsoonidaas inay socoto. waa la socotaa wiigii lasoo dhaafay ogoho qallaasa in magaalada ay ka jirtay oo si xasilooni ah lagu dhameeyey, oo ciidamadeena xoogga dalka iyo ciidamada guud ahaan meeshay joogaanba iyo shacabkooda hadda ay aad iyo aad iskugu fiican yihiin. waxyaabihii khilaafaadkii yaryaraha soo dhexgalena la xaliyey, oo ciidamada sharciga ahaa loo idmay, oo dastuurka ku-meelgaarka qodobkiisa 126 lagu sheegay inay ku ekaadaan shacabkana meel kastoo ay joogaan u gurmadaan, isla markaasna sugaan ammaanka, dagaalamaan cadowga iyo cid kastoo dhibaato u keenaysa dalka xorriyadiisa iyo gobonnimadiisa. marka guud ahaan markay marka aragto ciidankii iyo shacabkii inay isku meel ay ku tukanayaan oo ay isla shaqaynayaan, run ahaantii waxaan aniga aan ku dadaalhayno aan rabno in dalkeena ciidan lagu kalsoon yahay oo shacabka mar kastaba ay diyaar u yihiin ayagana inay garab istaagaan ciidankeena inuu noqdo ciidan oo difaaca dalka. marka isdhexgal aan rabno horey usii socdo, horeyna usoo jiray, aad iyo aadna ugu faraxsanahay aan ku boorinayno in sidaas u socdo. waa tahay ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka ee haatan qaarkood furmaha hore ee shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe jooga, qaar gobolka banaadir ay waajibaadkooda qaran ka gudanayaan. maxaad ugu baaqi lahayd ama aad dhihi lahayd maanta oo munaasabaddii ciidda loo dabaaldegayo? waxaan ugu baaqi lahaa horta aad iyo aadan horta marka hore waan bogaadin lahaa waajibaadka qaran oo ay hayaan. waan ka warhaynaa ciidamada furmaha ku jiro, marmar kuleelkas taagan, marmarna qabowgas taagan, marmarna aad kaneecada iyo dhibaatooyinka oo dalka ka jira marmar maaragtay ku nool. waxaan leenahay ciidamadaas ummadda Soomaaliyeed waa idin fiirsan haysaa, waa idin arka haysaa. waxaa laydinku abaalguda lama hayo. waxaa aafurteen dhiiggiina iyo naftiina furteen. sidaas ku dadaala oo dadaalkaas iyo furumahaas ku jira, cadowga la dagaalama, ummadeena Soomaaliyeed dhulka laga haysto u xureeya, si ummadeena Soomaaliyeed ee caruurteena dhalan doonto ay u helaan nabad iyo xasilooni. marka kuwaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya. waxaana leeyahay ciid wanaagsan ku ciida, waana idinka warhaynaa. waxaan ku dadaalahaynaa in xuquuqda ciidamada ay noqdaan
ahamiyadda koowaad in la helo yaan ku dadaalhaynaa xuquuqdooda iyo xuquuqdooda xaasaskooda iyo caruurtooda in la helaan ku dadaalhaynaa insha allahu guulaysta idin leeyahay ciidamada kale soo haray dalkana waxaan leeyahay amniga suga shaqeeya shaqo wanaagsan iyo anshax wanaagsan la yimaada waxaan kale farayaa ciidamada oo magaalooyinka waayihii dambe soo galay oo qaarkooda laga yaabo in xaafidihii ay ku hareen ayagana waxaan farayaa si degdeg ah inay ugu noqdaan xarumihii ay ka yimaadeen si cadowga looga difaaci lahaa waxaan kaleen fari lahaa ciidamadeena xoogga dalka ciidamada guud ahaan shaqadooda inay ka madax bannaan tahay arrimaha siyaasadda ay ku eg tahay arrimaha loo idmaday oo dastuurka ku qoran waxaan leenahay ku adkaysta inaad ku shaqaysaan sharciga iska ilaaliya arrimaha siyaasadda la xiriirta si ay u helaan kalsoonida shacabkeena mar kastana ha ku dadaalin danta guud oo qaranka inay u istaagaan marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ku ciid wanaagsan anagana xukuumad ahaan iyo dowlad ahaanba waan idin garab taagana waa tahay mudane wasiir ciid wanaagsan ayaan ku leenahay aad iyo aad baad